gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Finish ayaa maanta si rasmi ah gurigiisa ugu wareejiyay Maxamed Shariif Cumar oo gurigiisa si sharci dara ah looga haystay muddo 30 sano ah. Gurigan oo ku yaala waaxda Jabuuti ee degmada Kaaraan ayaa waxaa si nabad ah ku wareejiyay dadkii horay u deganaa iyagoo ka jawaabaya baaqa duqa magaalada Muqdisho ee ahaa inaan la aqbali doonin in caasimadda gudaheeda qof hantidiisa sharci daro lagu haysto. Dubbe Bare oo ka mid ah dadka sida sharci darada ku haystay guriga Maxamed Shariif ayaa baaq u diray dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan. Waxa uuna sheegay in uu si nabad ah ugu wareejinayo furaha guriga milkiilihii lahaa guriga. waxaan diyaar u nahay furahaas si shuruud la'aan inaan ku wareejiyo. waxaan kaloo rabaa oon ugu baaqa gobolka Banaadir dadweynaha degan oo guri ay salahayn dhex degan si kastaba ha ku soo galeen inay si shuruud la'aan ay ku wareejiyaan kuwii lahay guryaha lahay oo isdhahayo gobolka Banaadir nabad maahana waxaas niyadooda ha ka baxshaan. gobolka Banaadir waa nabad, dawladdu waa israacday, ha yimaadeen guryahooda ha u yimaadeen. gadoomiyaha la wareeg furahan in badan ku soo dhaqmaayay. gudoomiyaha gobolka Banaadir Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Finish ayaa sheegay inaan marnaba la aqbali doonin in caasimadda gudaheeda qof hantidiisa sharci daro looga haysto. Naga oo wakiil ka ah madaxda dawladda Soomaaliya waxaan ka shaqaynaynay in qof walba gurigiisii uu ku helo si shuruud la'aan ah. way jireen dadka guryaha degan qaar nagu dhibay, qaar ajnabiya la yiri, qaar gorgortamay iyo qaar sidaan oo kale si wanaagsan oo akhyaarnimo ah oo shuruud la'aan noogu soo wareejiyay. marka cid walba wajigii aan kala macaamilaynay haddii mataqaanaa ay diidaan inay guryaha si fudud u wareejiyaan waxaan uga saaraynaa xoog mar haddii ay caddaatay inayan guriga lahayn milkilihii iska lahaana uu taagan yahay. haddii si dadnimo ah ay yidhaahdaan sidan oo kale guriga waa ku dhaqmaynay muddo intaa la-egaan ku dhaqmaynay ciddii iska lahaydna kama xoogin markii guriga ay banneeyeen oo laga qaxay ayaan isaga meel gaaraynay. heladii mataqaanaa intaan deganayna waana laga cafiyey ama waa ka cafis dalbayna hadday yidhaahdeen ayaguna ay ka cafis dalbaan. waxaan ka shaqaynaynaa insha allahu tacaala si wanaagsan oo dadnimo ah inaan ugala wareegno furihii kuna wareejinno milkilaha guriga iska lahaa. ku soo dhawow la wareegista Maxamed Shariif Cumar, ku soo dhawow furaha gurigaaga wixii aad dhihi lahaydna dheh. waa mahadsantahay. Maxamed Shariif Cumar oo ahaa milkiilihii laga haystay guriga ayaa u mahad celiyay gudoomiyaha gobolka Banaadir Cumar Finish kaalintii uu ku lahaa in uu dib u helo gurigiisa. gudoomiyaha gobolka Banaadir aad iyo aad u mahadsan yahay. gudoomiyaha degmada Kaaraan Abshir waa ninka aad juhud ugu qaatay oona u taagan mar kasta habeen imaalan nin alla ninkii muslim oo guri laga haysto oo gurigiis asigii leeyahay oo leeyahay gudoomiyaha degmada Kaaraan hal ii imaada anaa guriyihiina idin celinaya. iyo gudoomiyaha laanta oo dadaal weyn aska qaatay oo 3 asbuuc orday aad iyo aad asigina ugu mahdina. waxaa kale ugu mahdina golaha kacaanka dawladana mahad weyn ugu celina. Mawlid Xaaji Cabdi, Bulsho TV, Muqdisho. sariflaha horseed money exchange waa horseedo waa hormuud sare waa hogaanshaha heerka sarifka ee dadku wada hubo adoo hawlale haysta lacag adag halkaad joogtaba horseed ku xidhnow ha kuu sarifood online ku heshidi. haddaba haddii aad dollar haysato oo aad u bedelanayso shilinka Somaliland garaac xidig 377 xidig 32 eber 6 2 eber xidig tirada lacagta iyo afar gees. haddii aad doonayso adeega dahab oo aad rabto inaad dollar u bedelato shilinka Somaliland garaac xidig 1 eber 9 xidig 9 eber 7 8 8 xidig tirada lacagta iyo afar gees. waad haysaa lacagtaadii kala xiriir telefoonka 443 62 41 horseed money exchange.
ma og tahay in tiifiyada Soomaalidu ay u wareegeen satellite cusub oo gaadhaya in ka badan intii uu gaadhayay satellite-kii hore qaaradaha laga daawanayo waxaa ka mid ah Afrika, Asia, qaybo ka mid ah Europe iyo dunida inteeda kale oo looga daawanayo nidaamka IPTV haddii aad joogto Afrika waxaad ku heli kartaa si fudud hoos u yara dhig diishkaaga xubinta suulka in le'eg kadib ku baadh frequency-ga kuu soo baxa adiga oon jihana u wecwicin diishka ku baadh frequency-ga si aad u hesho dhammaan channeladaas mahadsanidin